السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة مeel kasta adduunka aad ka joogtiin kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub. insha Allah videoga wuxuu ka hadli doonaa cashiradani sida caadiga ahayd. marka waxaan rabaa idin ka codsanayaa in videogan aan share gareysaan si dadka dhan u gaaro insha Allah taala. videoga wuxuu ka hadlayaa qaybta wuxuu ka hadlayaa stylada kala duwan guryaha loo sharaxo. style kala duwan jiro, waxaa jira classical waxa la jiro, waxaa jiro wax modern la dhahayo modelka waxaa jiro kuwa kale oo la dhahayo victorious ka la dhahayo. adiga way duwan yihiin, noocyo badan guriga loo sharaxdaa jiro, magacyana leeyihiin, style kala duwan leeyihiin. marka waxaan rabaa hal style inaan ka hadlo, kuwa kale insha Allah waan ka soo hadli doonaa. style ka rabaa inaan ka hadlo waxaa magaciisa lagu magacaabaa shabby chic ayaa la dhahaa. shabby chic kaniti anaga Soomaalideena inay taqaan u maleynayay, laakiin insha Allah waxaan ka taaban doonaa. shabby chic waxa waaye in shabby chic style-ka inaan taan u gudbin waxaan rabaa inaan ka hadlo shabby chic waxaan rabaa inaan ka hadlo marka ugu horeyso naagta soo saartay shabby chic style-ka la dhahaa. naagta soo saartay inaan ka hadlo codkaygu gaaban yahay umaleynaa. marka waxaan rabaa inaan ka hadlo naagta soo saartay shabby chic style-ka la dhaho. naagta soo saartay magaceedu waxaa la Rachel Ashwells. Rachel waxay ku dhalatay wadanka Ingiriiska, waxayna ahayd naag oo stylish ah oo guryaha iyo waxyaabaha sharaxday ahayd markeeda hore. marka waxyaabahan guri sharaxaad ka shaqeysan jirtay maxay ahayd Rachel. marka waxay ahayd xilligaas 80meeyada waa 1980 iyo waxa waaye 8 meelahaas camal leeyahay umaleynaa. marka Rachel waxay rabtay waxaa dhacday hooyo noqotay, gabadhaasii hooyo noqotay. waxayna ahayd dadka guryaha inay qurxiyo aad u jecel waa. marka hooyo noqoto sheekadu isbedelaysa. waxaa laga yaabaa guriga inaad alaabta aad soo dhigi karin, ilmaha iska jabinayo, waa laga wasaqeynayaa. marka waxay weyso wax iyada wax qurxan oo gurigeeda dhigato oo waxay weyso haduu Ilaahay ku roon yahay gurigan u qurxiyo ilmihiin waxba ka tareen. marka way fikirtay waxay sameysay waxa ku soo dhacay fikrad inay sameyso alaab iyada u gooni ah. alaabta guriga tiilo waay, laakiin waxay ka dhigtay naqshad cusub ay ka dhigtay. hadda u jeedin sawirada oo kale fadhigeeda caadiga u yaala ee maray saartay, marooyin ay saartay iyada toshay ee saartay. marooyinkan af Soomaali in shulshul la dhaho maleeyahay ma aqaan walaa, laakiin wax uu gooni waay, model gooni ah waay, shulshul la dhaho maleynaya. marka abaayada iga dhahay naagta waxay sameysay style-kan ay soo saaratay. marka style-ku waxay ugu magac dartay qurux iyo raaxo. ugu magac dartay wanu qurxayaan gurigi, raaxana weeyaa fadhigeeda lagu fadhiisto gurigiiba dhan raaxo waay. marka waxay sameysay dharkii caadiga ahaa oo sariirta lagu gogla waxyaabahaas ay toshay. markay toshay fadhigeeda ku toshay. waxay tiri hadhow ay fududahay shiyeer u yeeshay. shiyeerka laga furayaa, waxaa la geynayaa meeshii qasaalada amba way soo dhaqaysaa, dharkeeda nadiif u yahay, gurigan u qurux badan. marka qaab iyada u goonada qaabkan wax la iskaga tolo ma ahan, shulshul iyo waxba u yeeshay. marka aad u qurux badan style-kan shabby chic lahaa. laakiin waa style wuxuu ku daba xiriirsan yahay waxyaabaha duqduqa ah, waxyaabihii hore inkastoo xilligu soo baxay style-kan 1980 ahayd asalkiisa uu soo baxay oo gabadhan ay soo saartay. laakiin maxay ahayd caadiin hadda marka style-kan dadka qaar cadaanka u badan anaga ma naqaan Afrikaanta, laakiin dadka qaar guriyahooda marka fiiriso shabby chic marka aragto waxa kugu soo dhacay guri duqduq camal ah, style hore waaye. marka alaabii hore ee model ka dhigtay. laakiin adoon guri duqduq u ekeysiin waxa sameey kartaa fadhiga ku yaalo kale hada uga baqaysin in ilmaha wax ka yeelaan oo kale maraa soo qaadanay waa toleysa fadhiga ku toleysa shiyeer u yeelaysa. marada isbuuci mar amba bishii 2 jeer waa soo fura waa iska dhaqaysa, gurigu qurux badan yahay. marka hadhoodii ilmihiisa ugu ciyaaraan hadii marto ku imaadata meesha marka ashayaan guriga ma sha Allah martida maalintii ku imaad maalinta koreys uu ku dhaqayaa geedkaaga fadhiga qurux badan. marka maleystaa gurigan guri ilmo joogaan marka naagta u soo fikirtay marka sawirada hadda sawirkaas ugu jeedaan oo kale. marka style-kan waxaa lagu yaqaanaa dharka darbiga la surayaa. hadda u jeedo meesha armaajada soo jeedo cad cambuur cad suran waxyaasa lagu yaqaanaa. qolka jiifka kale waxaa laga yaabaa in gabadha bijaamada habeenka ay ku seexanayso oo kale inay surto amba cambuurada toobka dhahay cambuur waxa u taqaan kan ugu qurux badan ee jeceshahay ee suraysa meesha oo kalar ku soo baxaya markaas qolkeeda jiifka marka style-ka hada aragto shabby chic lahaa. nalalka noocaan iyo sawiro badan hadda ku jiro insha Allah sawiradan waa idin tusayaa. laakiin shabby chic hadaadan aqoonin Google ku qor wax badan ku soo baxay. marka gabadha ma sha Allah way dadaashay waxay sameysay markay dharkan soo saartay ee dharkii ee toshay
dharka nooca camal ee toshay ee fadhigeeda ku sameysay ee alaabihii kala marisay kala marinaysaa ilaa hadda alaabaha qaar kala la mari karaa miiska guriga ku yaal ku anfici waayo kala barsanaysaa kala dukaanka yaala kala ka ka dhigaysaa marka ma u baahnid alaabta in la bedelo alaab bedelo wanaqana marka waxaa dhacday gabadhii markay saas sameysay saaxiibadeeda ka heleen stylekan saaxiibadeeda markay soo booqdaan waxay leeyihiin walaal stylekan qurux badan waaye stylekan intee ka keentay oo aqligan markay aragtay in dadkii ka heleen waxay sameysay markaas 1989 ada 2 sano sanadka bacdi waxay sameysay dukaan ay furtay dukaan marka waxay ka furtay California Santa Monica meel dhaha ay ka furtay dukaan kadib dukaanka waxay bilaawday inay gado alaabahaas iyada soo saartay maxay ahayd fadhiga oo la gelinayo marooyinkaas fadhiga la gelinayo ee soo saartay ee gaday bis maasha Allah dukaanku uu kala socday dukaamo kale badan ay soo furtay laba hadda waxa u furan 12 dukaan Mareykanka ugu furan naagtan Michael lahay Rical lahay Rijal magaceeda yana qaldan naagta ka sheekeynay Rishal Allah ashwal marka Rishal waxay sameysay markii aragtay alaabta ee design-ki iyo wixii iyada la timid oo gurigan u qurxinayo guriga raaxo u ah hadee marti u maada ka naxaynin ilmihiin isaga ciyaari karaan oo ka cabsanaynin waxay sameysay had aniga fadhiyada noo yaalo kale hadii cunug ku boodbood ama cunugii halayo kale bis khalaas waay ma la dhaqi karo la marada way ku dhigan tahay laakiin naagta aqli u sameysay markaas u jeedin oo kale hadda fadhiga miiska saar wuxuu egay geedka maaragtay gaar isku soo duugaan maaragtay qofka markuu inta la xigaliyo kaas uu egay doorba kaas waa guriga yaala kala caday marinaysa meesha soo saaranaysa waxyaabo duq fahmaysa aad qurxinaysa li adiga marka style iyo gooniya ka dhigay qoftaaneeti gabadhaneeti Rijalkan marka 1996 oo kale waxay sameysay markaas waa 1980 iyo waxay 9 moqto markay dukaamada ka sameeyeen 12 dukaan ay ka sameeyeen Mareykanka waxay sameysay marka Rijal 1996 waxay sameysay buug ay qortay buugaasi ugu magac dartay Shabby Chic waxa la stylekan ka hadlay hadda qolka jiifka oo kale waxyaabahan dharkan shul kale Shabby Chic waaye hadda anaga waa arkaa dharkaaleeti oo sawirka daarkiisa barkimaha noocaan iyo go'an noocaan iyo waa qabnaa Shabby Chic waxyada xataa Soomaaliya ku arki jiray ayuu guryaha ka baxaayo marka style aad u qurux badan waaye hadaadan aqoon fiir style kale aan styleka u jeclaa waa styleka classic dhahayaan classic la dhaho iyo kuwa modaanka ugu jeclahay insha Allah ayagan waa ka hadli doonaa labada style waa ka hadli doonaa marka gabadhii waxay sameysay Rijal waxay sameysay buug ay qortay buugaas uga hadlayso guriga qurxan adoo ilmo haysto buugan waxay ugu magac dartay maxay ahayd Shabby Chic ugu magac dartay afar buug ay qortay marka kadib waxay sameysay 1999 waxay sameysay TV show iyada u gooni ay sameysatay TV gooni oo show iyada ee leedahay ka baxaayo oo Shabby Chic looga hadlayo bis ay sameysatay macnaha marka qaar waa TV-da qaar waxa soo daaya naag oo guri sharaxaysa ama naag cunto karinaysa waxyaabahaas marka TV waxay soo daysay iyada u gooni ah oo Shabby Chic la dhahayo marka sawirada arkaysiin oo kale hadda sawirada sawir wax waa duqduq camal waayo sawirada aad u duqduq yihiin laakiin hadaa fiiriso qurux badan ma sha Allah marka iyada magaceeda wax ugu dartaba qurux iyo raaxo ugu dartaba ee ugu magac dartay gurigeeda iyo alaabteedaba marka hadda u jeedo kale hadda miiskaneeti waxay sameysay miiskeeda caadiga ahay ee mara shulshul ee toshay way kor saartay waxyaabo kale ku kor qurxisay marka si hadda u fiiriso waa wax duqduq camal ah waaye laakiin si hadda u fiiriso aad u qurux badan hadhow miiska meesha ilmaha cunto ku cunaan ilmo ku cunaan miiska ilmo ku qadeeyaan hadduu ka wasaqoobo way qaadaysaa way soo dhaqaysaa ma fahmaysaa galabtii sida miisku qurux badan yahay marka ma jira waxyaabo oo ma jiro oo fahmaysaa oo ilma ii joogay guriga qurxisa kariye kana ii joog marka iyada style-keeda badan hadaa fiirisid cad ma ah cad dadka cad ee dhahan waa cad ee dhahan kalar cad ee style ku sameeysa laakiin cad gooniina ma ahan cadeesna ma aha marka waa cadees iyo cad isku jira waa Shabby Chic lagu sheegay cadees iyo cad isku jira waa badan ubaxyada waxa lagu qurxiyaa ubaxyada pinkiga ah lagu qurxiyaa pinki iyo cadaan la isku daray Shabby Chic loo isticmaalaa marka alaab badan hadaa fiirisid alaab duqduq ah waa Shabby Chic marka waxaan rajeynayaa inaad style-kan aad barateen
ay ka faa'iideen badanaa hadda waddanka Sweden waxaa laga yaabaa Sweden aad joogo waxaa laga yaabaa inaad ka heshid meelaha oo second hand oo kale ina alaabaa shabashig ka heshaa laga yaabaa alaabaa shabashig lagu sheego waa alaabo duqduqay waa keenaysaa hadaarta kala marsanaysaa hadaar sidoo dhiganaysaa marka waxaa sameyn kartaa fadhigaaga hadduu ku anficin hadda ku yaalo oo isdhihaysa fadhiga iska bedel mara u raadi inaad sameysid bal maskax keen adig intaa fadhigu qaali soo gadi lahayd maskax ka ilaa ilmihi guriga way joogaan moogtahay ma sheegin haddaa taa hooyo ilmihi ka wada koreen oo maasha allah yaa oo ilmo waaweyn u joogaan ma sheegin marka insha allahu istaylo kale oo badanna waa kasoo hadli doonaa istaylkaana caawa noogu egyahay cashirkeeni waxaan rajeynayaa videoga inaad share gareysaa insha allahu sawiradan inaad sii fiirsataan sawir yaraa ku jiro marka insha allah sawirada inaad sii fiirsataan rajeynaa walaalahayga qaaliga waa mahadsantihiin